magaalada muqdisho maanta waxaa la filayaa in ay soo gaadhaan ilaalada madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland sidoo kalena galabtan iska dambe waxaa la filayaa in Siciid Deni iyo Axmed Madoobe ay soo caga dhigtaan garoonka diyaaradaha ee aadan cad ee magaalada muqdisho maalinta berriana waxaa la rajaynayaa in uu furmo shirka wada tashiga golaha mustaqbalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya arrintan ayaa imaanaysa xilli isbuucii hore hawada laga celiyay ciidamo ilaalo u ahaa labada madaxweyne ee Jubaland iyo Puntland kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in ciidamadani ay khatar ku yihiin amniga garoonka diyaaradaha ee aadan cad sidoo kalena ay suuro xumeynayaan xasiloonida iyo nabadgelyada ka jirta caasimadda dhinaca kalena ay ku xadgudbeen habraacyadii loo dejiyay madaxweynayaasha maamul goboleedyada madaxdii hore iyo madaxda federaalka shirkan la filayo inay ka qayb galaan Siciid Deni iyo Axmed Madoobe golaha samata bixinta iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagaga hadli doonaa arrimaha amniga siyaasadda abaaraha iyo doorashooyinka arrimaha dib u eegista iyo dhamaystirka dastuurka inkastoo Axmed Madoobe uu soo saaray war saxaafadeed uu ku sheegay in dastuurka hadda la wada dhamaystirkiisa aysan Jubaland aqbalaynin dhinaca kalena aan lagu dhaqaynin deegaanadeeda sidoo kalena golaha samata bixinta iyo madaxweynaha Puntland ay si wada jira ooga digeen in la sii wado hanaanka dhamaystirka dastuurka haddana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu hoosta ka xariiqay qorshihiisa ku aadan dhamaystirka dastuurka iyadoo la sheegay in 14% xubnaha baarlamaanka laga saaray fadhiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka oo aysan xaadiri doonin xilligan ay socoto dooda la xidhiidha wax ka bedelka iyo dhamaystirka dastuurka xubnaha baarlamaanka ee laga saaray fadhiyada golaha baarlamaanka ayaana la sheegay in ay taageero khaas u yihiin Puntland iyo Jubaland iyo sidoo kale golaha samata bixinta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo in uu kala hadlo xubnahani arrimaha doorashooyinkana waraysigii u dambeeyay uu bixiyay waxa uu sheegay in doorashada sanadkan ee Soomaaliya la filayo ay ka bedelnaan doonto midii sanadihii hore Soomaaliya lagu soo maamulayay dhinaca kalena sanadkan ay qayb ka noqon doonaan nidaamka xisbiyada isagoo sheegay in uu u sharaxan yahay kalkiisa saddexaad in uu noqdo madaxweynaha qaranka maadaama uu soo maamulin dalka laba teeram ama laba xilli doorasho oo isku xigto xilliyadiisii doorashadana ay kala bedelnaayeen ama kala fogaayeen madaxweyne waxa uu sheegay in sanadkan ay wax badan iska bedeli doonaan arrimaha doorashooyinka taana ay tahay habka dimuqraadiyadda ee Soomaaliya ay u socoto xilli Jubaland iyo Puntland ay filahayaan in ay maamulaan doorashooyinka federaalka siiba soo xulista xubnaha xildhibaanada shirkani waxaa la sheegay in dawladda federaalku ay si weyn uga diyaar garowday qodobadii ay la hortagi lahayd xubnaha mucaaradkana la dhamaystiray halka mucaaradka la sheegay in ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan oo ay ka mid yihiin madax bannaanida dalka wajahida abaaraha siyaasadda gudaha iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka golaha samata bixinta qayb badan oo ka mid ah waxay qabaan aragtida ah in madaxweynayaasha maamul goboleedyada aysan iyagu soo xulin golaha xildhibaanada dhinaca kalena doorashadu ay noqoto mid ka bedelan midii hore si ay ugu guuleystaan doorashada soo socoto ee madaxtinimada dalka halka Axmed Madoobe iyo Deni iyagu ay doonayaan in wax walba ay gacanta ku haystaan sidii horena ay u soo xushaan dhanka kalena ay keenaan xubno iyaga daacad u ah dhinaca kale ay ku soo saaraan madaxweynaha ay rabaan haddaba isdiidooyinkan la xidhiidha arrimaha doorashooyinka siyaasadda gudaha madax bannaanida dalka wajahida abaaraha is-horfadhiisiga golaha mustaqbalka iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya go'aanada ay la imaan doonto dawladda dhexe iyo sidoo kale qorshayaasha u dejisan maamulada Puntland Jubaland iyo golaha samata bixinta warbixinadeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa balse adigu maxay kula tahay maxaa laga filayaa shirkaas